horeyn waa maxay sababtaad ugu hordayso golaha wakiilada maxaad rabtaa inaad bedesho se maxaad kaga mudantaa musharaxiinta kula tartamaya waxaan u doonayaa inaan noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan qabaa inaan wax badan ku kordhin karo inaan ku habboonahay oo aan leeyahay wax allaaliya wuxuu u baahnaa oo dhan anigu inaan hayo oo leeyahay awooddii iyo aqoontii iyo khibraddii intaba inaan leeyahay oo baarlamaanku ii baahan yahay dalkuna ii baahan yahay baanu arkaa sababta aanu doonayaa wataa anigu cid kale inaan wax ka sheego oo wax dhaliilo ma rabo laakiin waxaan qabaa ka ugu habboon inaan ugu habboonahay inta maanta u tartamaysa ama doonaysa inaan ugu kaga wada habboonahay un baanu arkaa intaas waan kusoo gaabinayaa taa taariikhdaada waxaad kaga mudantahay noo sheeg waxyaalaan kaga mudan xooya anigu marka horeysa nin akademika baan ahay marka xigtaa maxay to nin khibrad badan oo shaqo iyo madaxnimo iyo maamul iyo hawlo soo maray baan ahay min heer gobol ilaa 6 madaxweyne ee soo maray 5 madaxweyne soo maray dalka oo la soo shaqeeyay aad ogtiin tayd ka horeysay oo jirtay oo aan maxaa toodee aan academic institutions ka shaqeyn jiro oo aan wax ka dhigi jiro aan halkii ahaa maamul gobol aan soo maray diplomatic experience ka aanu leeyahay maxaa to diblomaasiyadda oo aan waxaan mid muhiim ah position kan u baahan yahay inay qofku uu khibrad u leeyahay waxyaalahaas oo dhan baa isbiirsaday baan u arkaa marka aan isleeyahay maanta waad ugu habboonta rajayn teleg ayaad ka qabtaa inaad ku guulaysato kursiga guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya tartan adag baa socda laakiin aad iyo aad baan ugu rajo weynahay markaan dhinac walba ka eegay inaan ku guulaysanayo kursiga mudanayaasha golaha wakiilada ee lasoo doortayna waa niman waxaan u arkaa dad dalka dantiisa ka fekeraya oo maxaa to u arkaa aan rajaynayo inay dooran doonaan ciddii ay isu arkaan inay dalka dan u tahay sidaa daraaddeed rajadeedu aad bay u weyntahay ugu dambeyntii yaasiin xaaji maxamed xiir faratoon dadka qaar waxay leeyihiin da'diisii ma awoodi karo inuu guddoomiye golaha wakiilada qabto xilliga howlgalku taagan yahay maxaad arrinta ka odhanay arrintaa dhowr goor baa meelo laiga weydiiyey meelo badan oo social mediaha aan ku arkaana waa jirtaa oo laga hadlaya laakiin waxaan u arkaa runtii inay iska maangaabnimo tahay iyo dad waxay kale ay ku hadlaan waayo oo intaa ku meeraysanaya adduunka waxa ila da'a iyo wax iga weyn baa haya hadday madaxweynayaal tahay hadday guddoomiyayaal baarlamaan tahay hadday institutionska kale ee dalalka hogaamiya leaderska caalamka ay tahay baananka adduunka haya meelaha mataqaana adduunka wax laga wado dad aniga ila daayo wax iga weyn baa haya marka taasu hadal maaha iyadu anugu waana caafimaad qabaa wax kalena ma qabo maskaxdaydu waa wanaagsan tahay khibradaydana ilaahay waa ii dhameeyey cimrigaygana mid waxaan u arkaa aan ku faanayo maaha midaan ka xumahay iyo midaan ka khajilayo iyo midaan waa ilaahay baan ugu mahadnaqaya cimrigaa dheerisiiyey golaha cusub maxaas leedahay ka qabo kusoo kordhi golaha wax badan haddeerto tafaasiishada geli maayo marka golahu fadhiisto aan la derso waxa ka dhiman wixii uusan hore loo qaban ee u baahan in lagu kordhiyo waanu ka qabanaynaa dee taas iyada haddeerto ma rabo inaan golihii horena wax ka sheegi maayo oo shaqadoodii way qabsadeen dee annaguna waa soo kordhinayna waxbaanu soo kordhinayna mid badan baanu islenahay aad ku darteen laakiin haddeerto ma rabno inaanu gallo